بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين halkan waxaan ku qoranayaa shiraaid aan ka hadlayo Faysal Ali Waraabe wuxuu barmadow ku noqday Somaliland ayuu barmadow ku noqday xarcad ayuu wuxuu duulay Hargeysa intuu ka duulay Brussels oo Soomaaliya uu shir ugu socdo oo aanay cid u igmatay jirin oo aanay jirin cid u dirsatay waa ogtiino markii Soomaaliya wada hadlanay labada xisbi qaran iyo xisbigii markaa labada xisbi qaran saddexda xisbi waxa ka tashaday labada gole golaha guurtida golaha wakiilada ayaa la mariyay markaas ay Soomaaliya aan la hadalno waa shirkii la dhal waa hadalku markuu bilowday sharciga ayaa la mariyay labada gole u codeeyay waa la baaskareeyay sidaas Soomaaliya lagu la hadlay shirkii hore wax ka badan la dhal hadda berigi dhaweyto uu Brussels tagay keligii baa tagay tano gaar ah oo isagu tagayay oo Soomaali weyna oo dantiisa oo wax aan Soomaaliland shaqo ku lahayna ayuu farmaajo halka uu tagay oo yiri saaxiib baan nahay markaasuu markuu soo noqday ee ummadii Soomaaliland la yaabtay ayuu yiri ummad dad wax qabsaday bay Soomaaliland ka daba qaylinaysaa markaasuu waliba wuxuu yiri telefoonkayga waxa ku saaf gareysan farmaajo Brussels farmaajo Nairobi farmaajo Dubai farmaajo Muqdisho ninkii Soomaaliland baabiinayay ee ka soo horjeeday ee qadiyadeena la dagaalamayay ayuu leeyahay meel kasta moobilkayga oo farmaajo joogo uu igu saaf gareysan yahay maninkaas Soomaaliland dan u haya maninkaas qadiyada Soomaaliland dan u haya maninkaas aanu ahayn dilaal maninkaas xisbi qarana away Soomaaliland way ka tashatay inay ka tashatay waxa sheegay 2011 madaxweynihii hore Ahmed Maxamed Siilaanyo habeenkii saqdii dhaxay ayuu TV-ga soo taagay oo yiri Soomaaliland baa ku nacday oo ku dooran weyday oo ku nacday oo ka tashatay markaasaad meel kasta xasarad inta shaqadaadii iyo xisbigaaga ka soo bixi weyday meel kasta xasarad la taaganta xasarad iyo propaganda ee la taaganta waa Soomaaliland baa ka basaas baa haybigu muxuu ahaa gaani iyo ufo gaani baa heshiisinaya gaani la shaqeeya ee habeen saddexaadkiina dee la qabtayba markii gaani la shaqeeya habeen saddexaadkii habeen afraadkii ayaa la qaqatay inta halka shirka xaafada shirka Hargeysa ugu yimi Maxamed Baaruudiyo Barbaraawiyo raga imika jooga nool ayuu ugu yimi oo gaani waa nin cusub inagu manihin macaarad la shaqeeya waninka gaani la garanayo wuxuu Soomaaliland soo markiyay iyo sidoo 43 iyo boqolka isku xidhay waninka 18 bishii 11aad laha la shaqeeya gaani u fakulaha waninka gaani loo shaqeyn jiray markii isaga la soo daayay waninka uu gaani u shaqeynayay ee gaani yiri igala shaqee Hargeysa igala shaqee taariikhdiisu waa taa waninka maalinta dhawato ka yimi Imaaraadka waninka yiri boosaboorka Soomaaliland waa la fasaxay waa la qaadanaya Imaaraadka fasaxay maxaa iminka shaqaalay DB Wallka maxaa lagu xidhay baasaboorka Soomaaliya waa nin iska sheega wax doono waa nin xisbigii ka dhigtay shandad u tuurta ku sito oo marba Brussels la aado oo marba meel la aado marba Dubai la aado away Soomaaliland way ka tashatay Faysal waxay uga tashatayna saddex jeer buu soo sharaxay markii uu dambeysay 4% bay siiyeen sidee buu xisbi 4% helay 4 sanana jiray sidee buu soo dhinac karaa sidee buu oran karaa waxay ku xidhan yihiin dad xafiis ku leh Garowe wadana waa xisbi qaran waa xisbi taageerada ummadda haysta waa xisbi 4% haysta doorashada keligii ma qaban karo laba xisbina ma qaban karaan dastuurkeena ay ogoleen saddex xisbi waa galayaan wadanina way galaysaa waxa kaliya ee la diiday waxa weeye commissionka ciyaarta marka la ciyaarayo the church baa la sameeyaa church iyo laba la taliyo
George la taliya away commission kan imika jooga wadani kalsoonidii bishii saddexaad 2018 bishii saddexaad maaris bay kala noqotay wax kalsooniya oo ay haysan ma jirto waxa weeye guurtooda talaba gaadheeno waqtigoodii doorashada oo bay ka dib mariyeen marka waxa weeye madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweynaha Soomaaliland waa inuu commission kala diraa waa inaan warqadii 14 page ee aan soo saaray ee aan u geynay oo inuu gudo saaraa waa in la soo baaraa waa in baarlamaanka la geeyaa waa sharci 2008 bishii labaad markuu gudoomiye ku xigeenka Musabbix xina maanta Musabbix isaga warqad qoray uu leeyahay waxay ku milmeen commissionku waqtiga joogay ee Sweden uu gudoomiye u ahaa waxay ku milmeen mid dawladda ku milmeen dawladda aad intaas uga dhigay anagu 14 page ayaan soo saaray waanu eedoodii ku soo qoray commissionka waxaan leeyahay wayna iscasilaan haddii aan kalsoonida haysan wayna iscasilaan faysalan yaanu oran laba xisba gelaya laba xisma geli karaan waa qeyr dastuuri waa xaraan awee madaxweynihii hore ee Siiraan sida Faysal Mukuyin maalintii dhawatay markii xisbiyadu shirayeen Musabbixina wixii SNM baa goolahoodii dhexe qabsan kari weeyday Faysal Bayaaf SNM baa goolahoodii dhexe qabsan kari weeyday maxamed madaxweynuhu ugu jawaabay madaxweyne Musabbix wuxuu ugu jawaabay waa lagu nacay faqash baad ahayd basaas baad ahayd وسكا علينا أقول سيدا ومدحوني وسكا علينا أيه وضنينا سكا علينا سفيصل ووحي هاي ومضى وصبر قصا وهي ومضى عطيسي أو تري بقول كيف أفرسيسي مركزو صوت هاجية إنه سلامه أو حسب جوا سكا عسلو أو حسب جوا جميع عصوب الصومالية أو مضى الصومال كالسوني هذا هنتا ساسا فيصل الصومالية معلم بينه حسبي معلم با كبيرو marka uu Musabbix lahaa umada ku nacday oo si ka celina maxaa joogay saddexda xisbi qarab baa goob joogaha Sonsaf baa goob joogahay madaxweynayaashii hore goob joogaha marka la leeyahay waa la si ka celinaya faqash baaday faqash hal doorka Soomaaliya baa joogay golahay lagu leeyahay faqash baaday waa la si ka celinaya Faysal marka labadii madaxweynaha imika joogay madaxweynihii horeba taariikhda uu sameeyay waa taa taariikhdu fana waa tagtay oo gaan la shaqeyn jiray Faysal marka taariikh madow ayuu Soomaaliland ku leeyahay waxaan ku talinayaa inuu xisbiga xagga kula jira ka soo dhex saaray hogaamiye ee aanu umada hor taagnaan waagii bari aanu umada oo marba cayda aanu umada la hor taagnaan umada aan la hor taagnaan ayaan ku talinayaa Faysal way bar madow ku noqday Soomaaliland saasaan ku salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh